Soomaaliya waa dal taariikh dheer leh, hodan ku ah dhaqan, suugaan iyo goobo dabiici ah. Soomaaliya waa albaabka Afrika laga soo galo, waa halka ay maraan 15% ganacsiga caalamka. Waa dal leh muhiimad istiraatiijiyadeed, waa dal ay ku yaalaan xeebaha ugu dheer Afrika. Haddii aad rabto inaad ogaato xogo muhiim ah oo ku saabsan dalkeenna hodanka ah, nala joog ilaa dhammaadka muuqaalka. Oo ha iloowin inaad ku dhufato subscribe-ta, sidoo kalena aad like-garayso muuqaalka. Tani waxay naga saacidaysaa in kanaalkeena uu gaaro meel dheer, muuqaalkan uu baaho. Xogta guud ee Soomaaliya. Juqraafi ahaan dalkeena Soomaaliya wuxuu dhacaa bariga Afrika, gaar ahaan geeska, wuxuuna daris leeyahay dalalka sida Djibouti, Itoobiya iyo Kenya. Dalkeena wuxuu leeyahay xeebaha ugu dhaadheer qaaradda Afrika, taasoo ka dhigaysa Soomaaliya dal muhiim u ah isku xirka dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha caalamka oo dhan. Waxaana dalkeena dhanka waqooyi ka dhaca gacanka Berbera ama gacanka Cadmeed, halkaasi oo ay maraan ku dhowaad 15% ganacsiga caalamka, halka dhanka bari ay dalkeena ka jirto badweynta India, taasi oo keenaysa ku xirnaan toos ah oo ilaa iyo Hindiya, Shiinaha, Indonesia iyo Asia oo dhan. Midaas oo ka dhigaysa Soomaaliya albaabka Afrika laga soo galo marka la joogo dunida bari. Soomaaliyada madax bannaan dhulkeedu wuxuu ku fadhiyaa baaxaddan 637,657 kiiloomitir square, wuxuuna dalku leeyahay dhul ballaaran oo ku habboon xoolo dhaqashada iyo beeraha. Dadka Soomaaliyeed tiradoodu waxay gaaraysaa qiyaastii ilaa 20 milyan oo qof sanadka 2025. Dadka ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku hadlaan afka Soomaaliga oo ah afka rasmiga ah ee dalka. Caasimadda dalka waa Muqdisho, waana magaalada ugu weyn ee Soomaaliya. Muqdisho waxay leedahay taariikh dheer oo ku saabsan siyaasadda iyo dhaqanka, waxayna caan ku tahay inay leedahay tikidda ugu weyn ee dalka iyo garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cismaan. Gobollada Soomaaliya waxay ka kooban tahay 18 gobol iyo 5 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Puntland iyo Koonfur Galbeed. Waxaana soo raaca Somaliland oo ku dhawaaqday madax bannaani, balse aan aqoonsi caalami ah helin, taasi oo lix ku noqonaysa maamulada ka jira Soomaaliya. Xeebaha. Soomaaliya waxay leedahay xeebaha ugu dhaadheer ee dhulweynaha qaaradda Afrika, waxaana ka mid ah xeebaha dalkeena caanku ku yahay xeebta Lido, Berbera iyo Kismaayo. Xeebahani waxay caan ku yihiin mowjadaha quruxda badan, ciidda dhalaalaysa, waana xeebo cajiib ah oo ku habboon in loo dalxiis tago. Webiyada. Dalkeena Soomaaliya waxaa mara 2 webi oo waaweyn, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba. Labaduba waxay ka soo farcamaan buuraha Itoobiya, waxayna maraan dhulbeereedyo muhiim ah oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Webiga Shabeelle waa kan ugu dheer labada webi, wuxuuna maraa magaalooyin ay ka mid yihiin Beledweyne, Jowhar, Balcad iyo Afgooye, inkastoo uu inta badani qalalo xilliyada abaarta. Webiga Jubba isna waa webi biyo badan oo si joogto ah u qulqula, wuxuuna maraa magaalooyinka Baardheere, Bu'aale, Jilib ilaa uu kaga daro badweynta Hindiya, deegaanka Goobeyn ee agagaarka magaalada Kismaayo. Xoolaha iyo duurjoogta. Soomaaliya waxay sidoo kale hoy u tahay xoolaha la dhaqdo sida geela, lo'da iyo ariga. Sidoo kale dalkeena waxaa laga helaa xayawaano badan iyo noocyo kala duwan oo duurjoog ah sida maroodiga, shabeelka iyo libaaxa, inkastoo badanaa ay haajireen kadib dayac ku yimid iyo saameynta dagaalada sokeeye iyo ugaarsigooda oo batay sabab la xiriira dowlad la'aanta. Xoolaha ayaa ah mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka. Buuraha. Dalka waxaa ku yaala silsiladda buuraha Golis, taasoo ah mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee dalka. Waxaa la qiyaasaa in ku dhowaad 1 milyan oo hektar oo dhir ah ay ku yaalaan. Buurta ugu dheer ee Soomaaliya waa buurta Suurad, halka figta ugu sarreysa Soomaaliya oo ku dul taala isla buurta Suurad lagu magacaabo Shimbiris. Taariikhda Soomaaliya. Soomaaliya waxay iska tuurtay heeryada soo duulayaasha reer Yurub ee Ingiriiska iyo Talyaaniga kadib halganno isugu jiray dagaal iyo diidmo muddo 10 sano ah oo ay Soomaalidu dhulkeeda ku difaacanaysay. Kadib ayay Soomaalidu u jihaysatay halgan af iyo qalin ah, kaasi oo ku soo aaday xilligii ay ugu daciifsanaayeen soo duulayaashii badaha ka soo tallaabay oo ah waxay ku magacaabeen dagaalkii labaad ee adduunka kadib.
26 Juun 1960 gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa hay'adda gumeysiga Ingiriiska iska tuuray, halka 1 Luulyo 1960 afar maalin kadib gobollada koonfureed ee Soomaaliya ayaa iyaguna si lamid ah isaga qaaday hay'adda gumeysiga Talyaaniga. Isla 1 Luulyo 1960 waxaa dhacay midowga labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya, waxaana halkaa ka dhashay dalka hadda loo yaqaano Soomaaliya iyo Soomaalida keli ah ee ka badbaaday xariiqamaha ay xariiqeen gumeystayaashii reer Yurub si ay u hoosgeeyaan ummad aysan dal, af iyo diinba wadaagin. Soomaaliya kadib markay heshay xorriyaddeeda waxay gashay dagaallo dhowr ah, taasi oo ay sababtu tahay cabsi soo wajahday xabashida, kuwaas oo doonayay inuusan dhalan dal Soomaaliyeed, maadaama Soomaalidaas ay inguriyen karaan dhulka kale ee ka maqan ee gumeysuhu u hadiyeeyay, gaar ahaan Ingiriiska. Dalkii Soomaaliyeed ee afar jirka ahaa ayaa dagaal galay 1964 kaasi oo ka dhan ahaa Itoobiya. Kadib sannado waxaa qarxay dagaalkii 1977 ama dagaalkii xoreynta Soomaali Galbeed. Dagaalkii 1977 wuxuu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee ku saabsan qadiyadda xuduudaha Afrikaanka, kaasi oo ay jeexeen gumeystayaasha, kuna kala qaybiyeen qowmiyado iyo ummado asalku isku mid ahaa, wadaagayna dal, dad, af iyo diinba. Taasina waxaa tusaale cad u ah kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed ee loo kala dhigay 5 qaybood. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya waxaa noqday Aadan Cabdulle Cusmaan, kaasi oo xukunka hayay laga soo bilaabo 1960 ilaa 1967. Dalka waxaa saameeyay mowjadihii isdaba socday ee caadada ka noqday Afrika, kaasi oo ahaa afgembi military, waxaana 21 Oktoobar 1969 afgembi military dalka kula wareegay taliyihii ciidanka xoogga ee xilligaas Maxamed Siyaad Barre, kaasi oo xukunka hayay ilaa 1991. Dagaalka sokeeye sanadkii 1991 Soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye oo sababay burburka dowladnimada iyo xasilooni la'aanta gudaha dalka. Dowladihii dhashay burburka kadib waxay isku dayeen inay dib u dhisaan nidaam dowladeed, laakiin weli caqabado badan ayaa hor yaallay ilaa iyo maantadan aan joognana jira. Tan iyo 2004 Soomaaliya waxay samaysay isku dayo badan oo dib u dhis ah, waxaana la aasaasay si rasmi ah dowlad Soomaaliyeed oo qaadatay nidaamka federaalka, taasi oo aan ahayn ku meel gaar. Sanadkii 2012 waxaa lagu magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana noqday madaxweynaha xilligaas Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo ay jiraan caqabado, Soomaaliya waxay u socotaa dhanka horumarka iyo xasiloonida dhaqaalaha iyo nolosha dalkeena Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha. Xoolaha dalkeena ayaa loo iibgeeyaa suuqyada maxalliga ah iyo kuwa dibadda sida dalalka khaliijka. Dalka sidoo kale wuxuu leeyahay kheyraad dabiici ah sida dahabka, kaasi oo si maxalli ah looga soo qoto gobollada waqooyi. Badanaa kheyraadka kale ee dalkeenu leeyahay waa gaaska dabiiciga ah, shidaalka iyo uraniumta. Inkastoo si rasmi ah aan loo daahqaadin heerka iyo cabirka ay gaarsiisan yihiin, laakiin waxaa markii ugu horreysay ku wada baaritaan heerkiisu sarreeyo shirkado ka socda dalka Turkiga, kuwaas oo heshiis la gashay dowladda federaalka si ay u baaraan, u qodaan, una diyaariyaan ilaa heer la beec geyn karo, kadibna ay suuqyada caalamiga ah u iibgeeyaan. Taasi oo rajo weyn laga qabo in dhaqaalaha dalkeena ay wax weyn ku soo kordhin doonto haddii sidii loo baahnaa loo fuliyo, loona xisaabiyo, kana badbaado fashilada maamul xumo ee ku dhacay dalal hore oo laga helay kheyraadka dabiiciga ah sida Nigeria oo kale. Dalxiiska wuxuu muhiim u yahay dhaqaalaha dalka haddii loo diyaariyo kaabayaashiisa. Dalkeenu wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer ee dhulweynaha Afrika, sidoo kale goobo taariikhi ah ayuu leeyahay, waxayna soo jiidan karaan indhaha dalxiisayaasha. Dalkeena sidoo kale wuxuu leeyahay dhaqaale koraya, gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo adeegyada, waxaana la wariyaa in dalkeenu leeyahay mid ka mid ah isgaarsiinta ugu fiican Afrika iyo internetka, weliba mid xawaarihiisu sarreeyo, waxaana ka dhisan shirkado isgaarsiineed oo kobcaya. Dalku wuxuu kaloo leeyahay bangiyo keenay nidaam bangi oo fiican ilaa iyo xad. Inkastoo caqabado amni iyo mid dhaqaale ay jirto, haddana waa kuwo keenaya wax curin iyo isweydaarsi lacageed oo fudud. Heer bixinta lacagaha ay gaarsiiyeen inaad ku bixin karto saacad, ookiyaal, qolofka taleefankaaga ama xitaa faraanti. Waxaana ka diiwaan gashan Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ku dhawaad 13 bangi oo maxalli ah. Dalka sidoo kale wuxuu si adag ugu tiirsan yahay lacagaha laga soo diro dibadda, gaar ahaan qurbo joogta Soomaaliyeed kuwa ay soo diraan.
waxaana lagu qiyaasaa 1 bilyan oo dollar ka badan. Dalka sidoo kale wuxuu qayb ka yahay ururada dhaqaale sida Ururka Bulshooyinka Afrika, East African Community. Lacagta rasmiga ah ee dalkeena waa shilin Soomaali, balse waa mid sii dhimanaysa sababtu waa dollarka iyo helid la'aanta cid danaynaysa oo ka warqabta, gaar ahaan dowladda. Gobolo badan oo dalka lagama isticmaalo lagamana ogolo, waxna kuma iibsan kartid. Waana mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sicir bararka, in wax kasta cirka yihiin gudaha dalkeena. Diinta iyo bulshada Soomaaliya. Diinta dalkeena waa diinta Islaamka. Alxamdulillaahi calaa nicmati alislaami wal-iimaan. Soomaaliya waa dal muslim ah. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha jamhuuriyadda 100% waa muslimiin sunniyiin ah. Ma jiro cid diin kale haysata, mana jirto shiico ku nool gudaha jamhuuriyadda. Taasi waa mid la isku waafaqsan yahay. Waa ummad muslim ahayd quruun. Weliba waxaa la wariyaa inay diinta soo gaartay dalkan ka hor magaalada Nebiga, Madiinatul Munawwara, gaar ahaan hijradii koowaad ee Ardul Xabasha. Waxaana caddaynta muuqata ee hadda jirta noqon kartaa Masjidul Qiblatayn oo ku yaalla magaalada qadiimiga ah ee Zaylac, taasi oo macnaheedu yahay in xilligaasi dadku ay u tukan jireen Bayt al-Maqdes inta aan loo wareejin qiblada xajka Maka al-Mukarrama. Waa tan loo badan yahay inay Soomaalidu xilligaas diinta soo gaartay. Qowmiyadaha Soomaaliya si guud waa hal qowmiyad, inkastoo xaqiiqdii laga helo qowmiyado kale sida Carab, Indiyaan iyo Bantu, kuwaasi oo Soomaaliyoobay ilaa iyo xad. Inkastoo ay khasab tahay sheegista kala duwanaanshaha, laakiin Soomaaliya waxaa majority ka ah qowmiyadda Soomaalida si buuxda, waana ku dhowaad 98% qiyaastii. Soomaalidu waxay leeyihiin dhaqamo hodan ah oo la xiriira dhanka cunooyinka, ciyaaraha, suugaanta iyo farshaxanka. Fanka iyo gabayada Soomaalida ayaa caan ka ah gudaha iyo dibadda dalka. Soomaaliya waxay leedahay rajo weyn oo ah inay dib u dhisto dowladnimo iyo nabadgelyo waarta.